dictooradana laayow shaamow ku dooxee jannadii ku doonow oo waatu hadayta ka dhawaajinay Sheekh Axmed intuu aragtay loo sameeyay in dhibkiiba uu ku soo aruuray inaad walaalka ku jannada jannadii ku doonow intaan dunida joogay naftu ay dig leedahay door ay ahaataba debigaad falaysaan dedan iyo si daalacan dacwadeeda kama haro dadweynuhu isweydii ruuxii damiir liyo kii inaba dareen low ku dul joogso deelko jawaabaha deeqsi marka waxaan ku qabsaday abwaan galeer waxay galeerow dabuub gabay mid daboolan oo xiran iyo hadal dahsoono aan doqoni garan karin mid daweyni sheegtiyo mid digrii u haysto dhaqankeena duuga ah qof dareen lah mooyee adigaan ka daaline suugaanta doorka ah diirkeed ahaydoo adaa daajin jirayoo dookhaagu yahayoo door biday dhankeedee dacwad baan wadaayo dood aan dagaal iyo dibindaabyo lagu darin daaha aan ka qaade duco iyo quraan iyo digis iyo waxsheeg iyo waa danguudaygaho waxaan ku dirsanayaa madaalow dalkeennii dabarsame dadkeennii degme iyo dhulkeennii dareen loo riyaaqiyo akhbaar aan ku diirsado degdeg iigu keentaa dawad lagu bulaaliyo su'aalahan isdaba yaal madaxa iga daaliyey jawaabtoodu deeqsi halkaan marka su'aalihii ka bilaabanaya ma digrigii xadrada iyo wacdigii iyo duruuskay ka durgeen wadaadadu dariiqaana qiimiyo dawri culumadii hore miyay dacal mareenoo dhan kaleba ku joogaan ma shisheeye diiniyo jihaad doojinayaa dabka siiyey beledkoo dabku shiday dalkeeni ma dirirtiyo halaagiyo dagaalkiiyo colaada dadku wada jeclaado xumahaa la doorbiday ma dalkaynu gadanno dariskiyo shisheeyaha laga siisay doolaroo dulaaliin ka wadana ma dambay inoo tahay dumarka iyo maatada daayartiyo carruurtiyo duqoodoo la dhibaya dalka iyo dadkiisii dirirta iyo colaadaha hubka dhiirigeeyaa inta lala dul joogsaday aan ka daaya lalahayn ma damacaa xaddaafoo dadkiibaa xumaado dawgii samaantiyo daacadnimo ka leexdo dabil baa la dhigaya madarajiyo xilunbaa loo wada digleeyo danaystaynu wada nahay ma durjoogta nool iyo xoolaha dabjoogtiyo gedigiis dugaagoo diinaar la siistaa danta aynu moodno damaceenu wadayahay madirtoo la dubo iyo geedaha dugaalka leh dhuxushoo la daabulo daaqoo xaaluf laga dhigo dalagoo dab lagu shido kan digriiga haystiyo kuwa dowlad sheegtiyo kuwa diinta sheegtiyo dowladkii la baxa iyo mid kastaoo dagaal wada yaa layska daawaday maamaha daaweynbaa waxa ayna daayicin dadku markuu duloobo ma dursooma diirkood noqon maayo daanyeer junjigana dad weeyaan dabciga iyo aqoontana wax ma dooriyaan bahda ma ilmada dayeysaa daamankayga qoysee dawyada ka falatiyo murugadan idilataa laygu diirsanayo lagu wada doogsan halkaasay ku dhammaatay maansada ugu horreysay oo wada su-aalaasa markaan daawacay maansada anigu abwaangaleer ku harqabsaday ayaa inta uusan abwaangaleer ka soo jawaabin maansada waxaaba jawaabtii ugu horreysa soo diray abwaan la yidhaahdo cabdicasiis xoogsin oo run ahaantii aanan garanayn weli aanan arkin macnaa waxaad garan kartaa in silsiladu aysan ku bilaaban kuna dhammaan kunana socon isgarasho ha ahaato aragti oo isha ah ha ahaato aragti oo fikirka ah
ay ku socotay qof walba iyo dareenkiisa markaas wixii taabanayay inuu wax ka yiraahdo warkeedu ku badin maayo waxaan siinayaa waan galeer oo su'aalahan jawaabahoodii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دماتنا هذه البلدين والسلام يا وحاسدوا كانوا برلمان يكون هذا العلم يسد الشرف سيقيم عليه العدس يوتحي كليسين كل أمي وداد به ولا يقضي الدين لكن وحوم لنا هنا كم بتاعي شنتا حق ومسلم في سهولة هاي هديو كاوري وهدينا سلامته هدو هندسين هدو دعيسو هدو كويرو أو كادل بو oo faydaha dacaaka faaji inaad dalabkaas hadaan xumaan ku jiraysan inaad ka hadbasho marka idinkoo walaalahay maadsan waad buuxiseen kolay kaalintii aan idinka baahnay waan idinka mahad celinayaa dhammaan rag iyo dumarba dabcan anagu waxaa nagu kalifay buugga iyo qoraalkiisa anagoo dib uga faalayn doona haddana waxaan gudagelayaa oo aan bal isku taxaabujinayaa su-aashii uu weydiiyey maxay ahayd dhamaystirkeeda Axmed Yaasiin oo inoo ah xidhiidhiyaha meesha ahayd deelka maxaa ku doorateen horta deelka wuxuu bulshada ku doortay qofku markuu maasad samaynayo waa khasab ama gabay ha noqoto ama geeraar ha noqoto ama saar ha noqoto ama shirb ha noqoto khaafiyadda iyo habdhaca ay suugaantu leedahay inuu eray qabsado marka deelay markii uu qabsaday wuxuu hore u tilmaamay inay jirtay deelay hore oo la tiriyey uuna dib u furayo mid cusub waxaa lama huraana markaa deelaydaas inay silsilad noqoto maadaama su-aalo iyo jawaabo ay yihiin sidii deelaydii hore lagu yaqaanay waxaan tilmaynaa inay tiradeedu ahay waxay soo bilaabatay 1979 ilaa 1880 dabayaaqadeedii way socotay gobollada dalka oo dhan iyo dibaddaba way gaadhay laakiin waxay ahayd laba qaybood oo qolo diidan nidaamkii markaa dawliga ahaa ee jiray iyo qolo taageersan oo difaacaysi nin walibana kuma khaldanayn oo waxa weeye dareenka markaas shakhsi ahaan uu taagan yahay ayuu kaga turjumayaa suugaantiisa iyo maasadiisa haddaba tani way ka duwan tahay waxay kaga duwan tahay ma jiro wax negative ah ama mucaarada oo iska hor imanaya aan ka ahayn in la wadaago dhibaatadii meesha ka dhacday iyo qof waliba sida uu u arko iyo qaabkeeba xal loogu heli karaya oo ah mid la isweydiinayo ee ay soddonka maaso ka wada hadlayaan qof waliba dareenkiisa siduu u arkay sida xalka wadankii hadday nabad noqoto hadday horumar noqoto hadday deganaanshiye noqoto hadday wacyigelin noqoto looga qayb qaadan karo haddaba maasadii dareen markii ay gashay dabcan aan idinka dhexgala waxaa kale oo la isku weydaarsanayay maasada oo ay ku faafaysay aaladan cusub ee internetka maadaama aan dadku meel wada joogin waxaan mar walba aad ugu mahad celinayaa shabakadaha af Soomaaliga ku hadla oo imika aan oran karo waxay qayb weyn ka qaateen noolaynta iyo tayinta af Soomaaliga oo aad moodo haddii 20 sano aan la heli lahayn inuu dhiman lahaa marka taas waxay suuro gelisay in qof walba meesha ay joogto iyo gurigiisa dhexdiisa ay ku gaadho maasadii dareen kadib nin Cabdi Cabdicasiis Maxamed Axmed Xoogsade ayaa isagu maasaliya dulmigii Shaamow oo iyadoo qarax ka hadlaysa dhexma ugu jawaabay inkastoo ay ku saabsaneyd badidooda buugga ku qoran tahay waa maasada labaad qaraxii iyo dhibaatadii iyo ardaydii la laayay haddana waxaan isku dayay inkastoo aanan dee dhammaantood buuxin karin su-aalihii uu Bashiir soo diray balan qayb ka mid ah sida anuguna dareenka maasada marka waxaa la yidhahdaa dayax sababtoo ah maadaama uu dareen ka hadlay wixii inaan iftiimiyo ayaan dayaxa u doorto dayaxu u ifbadan waxaan deelayda maasada doodaha murtida iyo suugaanta doorka weli danabyadeedii raggii duurxulkeeda iyo digirkeeda curin jiray duniday dul joogaan dayax muraysidiisii xidigaha dusheenna aad daliisha maanto dadkana u caddeeye dareenkiina keeno damiirkiina yuura deelay diraacow diraac ninka lama yidhaahdo laakiin awowgii baa la yidhaahdaa marka maadaama maasadu ay deel ku socoto magacii awowgii baan ugu halqabanay inta badan magacaasaa ku jira deelay diraacow iyo deecashada gabay adigaa dabkeed jiray murtidii daraysnay hadalkii dabkoo kale dinidaba iftiinshee kala saaray dowgiyo danigiiyo xumaantada dhabtii waan ku diirsaday balaan soo daliisho ceelkii danoodiyo dusha haradigeediyo deexdii habyoodiyo darsantii hargeysiyo daafaha tog dheer iyo deegaanka ceeldheer hiiraan dusheediyo didibkii ku yaal mudug
daanta baydhaboodiyo daralee jubooidi ama degaladii gado tarantii nugaalay dhulka daawashada iyo dalxiiskaba lahaaye dalmar baa yaqaanee daaliye sanaagiyo doobiyada ku yaal sool ama darinta caynaba dadka dega diraacow dunjigeeda soomaal waa duriyad quraato waa dad wada walaalo dusha sariya midabkuwa diirkaba isaga eg dubaaqa iyo hadalkiyo diintuna mid weeyaan waxse kala dilaayo mid badayr ku xidhayo kala daadsi ehelkii dadkaygii danaysta dakhli weyn ku qaato dulmi iyo xasarad iyo dekaniyo qabiil iyo dibindaabyo barayo kala diray dhammaantood yaan dowga jiidine aan hoosu soo dego duulkii wadaadada digrigiiyo kitaabkiyo ducada iyo qiraa'ada dadku ay u doorteen dembi wixii la galay ee laysaqaafulay dibadday ka joogeen shimbiriba hal door bay dabqaaday yidhaahdeen dadkii dusha holacii koowaad halkii ay ka duushiyo buulkeeday dab siiso dambaskii ku gubatay iyona doorkii weeyaan hadda wadaadada dhan maalanka waa qayb taban dadka wada shisheeyaha dadka gubaya maantana darna carab xaggeediyo diinaar rag haystaa soo diray ogsoonow darna daalimiintiyo doofaar galbeed iyo ducafada amxaarkiyo dulligaana haystaa soo diray ogsoonow nin weliba dantiisiyo damaciisa gaaruu dalkeennaa u gubaya ilay duqani abidkeed dadka kii wixigabay door xun tidhaahdaa abwaanow dadqalatadu xaq amaba dareensana dabka ay shidaan iyo daartay ku dumiyaan dariiqii ay gooyaan inuu yahay dalkoodii danabkay dilaan iyo duqaday waxyeelaan ama dumarka qaxaya inuu yahay dadkoodii maba oga diraaco dan waxay u haystaan intay dunida joogaan dadkeennana u mariyaan dalqadaa wixii gala ee ay dan siiyaan dollar loo xisaabsho durbadii dhammaado dayn iyo amaah dhala waa danaysta iyo tuug dambiile iyo xaalkii in dagaalku cudur yahay lagu dila halyeygiyo digtoorka iyo waxgaradkaba dadku way u jeedaan kama daalan weliyo duul ciilqabaa jira ilaa ay dareemaan dabka lagu xanuunsado ama uu dalluun galo lagu dila naftiisaba giiftiiyo xanuunkiyo dakharada colaadiyo darxumada diraacow dadku way ku jireen dadku wuxuu jecel yahay raggu doorka maanta haba ugu darnaadee dembi iyo dhibaatiyo dagaal sii kordhaayiyo dibindaabyo mooye weli daacadnimo iyo dowladnimo kumay dhalan haddaan diintu diiday daliilkii qur-aankiiyo daahirow rasuulkii calayhi salaatu wasalaam taas nooga sii digin duubkaan ku xidhi lahaa dalka maamulkiisaba dumar baan ka dhigi lahaa ducadii xumaatee habaarkii darnaa iyo dowladdii la ridaye tandambayse khayr iyo daa'imow ka yeelsamo dadku aanay odhan baa inaan dowga seegniyo duuflaalku nagu dhaco dadow noo horseedee dubu laabtay dirkii ruuxaan dantaa wadin dagaalooga kuu daran iska diida weligiin kii daacadnimo iyo dadka wada sinaantood isku duubni ugu taga dowlad iyo wanaag iyo danta guuba wa iman dunidoo la meeliyo dawarsiga shisheeyaha diraaca waxaa falay dowladaha galbeedkoo dabinkii gumaysigu door kala ciyaareen inaad adigu duusho dekedaha u xaadho ducufnimo guddoonto dayartoo qadaanto digtoorkoo adeega ah dumarkoo qabaaniyi dan kale wata weeyaanoo doqonnimo ogtahay daayinuusan naga bixi daayartii hallowdee waa kuwaa dan seego dugsi aadi maayaan derbijiifya weeyaan darna daalimiintiyo dembiilay u xidhan yihiin kuwana diinta kaba bixe dhagaha daloolo dahab bay ka buuxsheen sidii dumarkii oo kale darna waa dhammaadeen intay dibad u dhoofiyo dalka leeta aadiyo laashka iyo doomaha duulaanka buuraha orodka aan la daalayn darandooriyaayeen dembiyada la gelayaa duriisiyo wanaagiyo dar ilaahay maahiyo diintoo la fidiyee diirnaa mid raba iyo doolaar mehelaya ayaa loo dan leeyahay imisaa ku dubug yidhi imisaa daryeel xumo dawilii dhammaado uu dugaagu qaybsaday dembigaa waxa iska leh kuwii dirirta wada iyo kuwii dumiyey taarihii dadka kale ku noolaa dushooday ku qoran tahay daayi waa u jeedaa deenkaasna way gudi